waxaa magaalada London soo gaaray madaxweynaha dowladda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo lagu wado inuu maalinta berita uu ku beegan 19 bisha September loona asteeyay maalintii loo sameeyay aas qaran boqoradii wadankan Ingiriiska Queen Elizabeth II. madaxweyne Xasan Sheekh ayaa waxa uu ka mid noqonayaa boqolaal wafdi oo soo gaaray oo isugu jira madaxweynayaal, ra'iisul wasaareyaal iyo boqorro kuwaasi oo aaska loo sameeyay boqorada wadankan Ingiriiska Queen Elizabeth ka mid noqonayo. hase ahaatee madaxweynaha dowladda Soomaaliya ayaa waxa uu joogi doonaa saacado kooban gudaheeda isla markaana waxa uu noqon doonaa halka uu ka yimid oo ahayd Mareykan, halkaasi oo lagu wado in uu kaga qayb gali doono shirar caalami ah. kadib markii uu soo gaaray magaalada London madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa ay suura gashay inuu wax ka weydiiyo ujeedka socdaalkiisa safiirka Soomaaliya ee wadankan Britain Mudane Cabduqaadir Axmed Khayr. سعادة سفير بل واحد وربحنا نجسي سعودالك مدحوينها وكوي ودن كان. بسم الله وما سنتهي مدحوينها دولة فدرالك الصومالية مدن حسن شيخ محمود أي مانتا سير رسمي سو جاري مقالة لندن سو قيب قالوا تأسيد الله سميناها بغرد جيريوتي مدحوينها إنه حكومة تلي دونا دولة الصومالية شعب الصوماليات إن هو هاي لغو معموسو تأسيد بغرد ومانتا قيب كميدا إسعوتو بريتنا مدة رسمي وين لا سمين دونا دولارات. سعادة كاسنا وحوها سفير كصوماليا ودن كان بريتن مدن عبد القادر أحمد خير ويورمي يعني جوا عبد الفتاح على الشروع.